hadda marka waxa mushkilad ka taagan shaki waxa jira isku aadsi waxba isku aadsanaya waligeed waa isku aadsan jiray kuwa maanta jooga haday isku aadsadaan ama sidii la arki jiray si aan ahayn meesha ka soo baxda oo sidee mid kasta oo la soo diyaarsaday cidii soo diyaarsatay ama kaga rumeeyaa oo dhahasan kuugu ballan qaaday waa isla sidii hay ma dhici kartaa way dhici kartaa hay dhinaca kale ma noqon karto in hay la soo diyaarsado laakiin markay taanada la isugu yimaado sidii caadiga la kasi jiray noqoto war qof walba uu cidii markaas aad u arkaysid si oo xaga kale u gadoonto marka maadaama wixii wax maqan ay yihiin oo la ogeyn khilaafka socdana inta uu ku kooban yahay inta uu hal ugu ekeeyo yaan kor loo sii rarin oo yaan laga dhigin reer iyo ku meeshan waa wiilasheenii Soomaaliyeed oo kuraasta kala riixanay maxaa laga rabaa marka haddaan maslaxayn karno war wadankan dantiisu waxay ku jirtaa si nabadgelyo oo deganaansho ay ku jirto inaa wax soo wadataan ama isla wata haday isla wada ma yeelayno kiilana warkaan saas maaro beledkan sidoo ahaan jiray saaman buu ahaa cid ilaahay u caalfun bana qaadan jirtay cidaas ay marka qaadato farsamada ay dadku u kasbanaysa ayada laga rabaa taas waa wax kale inoo taala marka muhiim guud ahaan isku soo koobnaano ummadeena Soomaaliyeed dagaal wax ku saarsan horta ay ka soo daashay mid kale wadanku wadan isku wada xiran ma ah oo hadda mesela maamulada kala duwan mid walba waa maamulkiis kuwa waxa ku dhaw wadanku burburaya kuwa dhaay oo muxuu burburaa hadii burbursan yahay hadduu kala go'go'ayahay oo gobol kala yahay maxaa burburaa marka waxa dhaysay kooy saashan soo burburo kala burbura kooy saashankii hal dawlad oo jabhada ay ku kaceen oo la yaqaan oo la ridaayo oo gobolada Soomaaliya oo dhan xukunta oo saameyn ku wada leh hal mar la riday si maalinkaas loo kala tagay wax hadda ka dhaxeeya dadkii oo meel u taagan oo intii la isugu tago la ridaayo ma jiro maxaa la ridaa intee riday bishan intee loogu hagaaga afgooyaha lama dhaafi karo xagga looma dhaafi karo inta xagga looma dhaafi magaalada Muqdisho bas ma wax ridayna Muqdisho maxaa laga xagga la ridaa sheeg baadi meel riday meesha ma taalee tartiib aan iska deganaano ummadda wixii khayr loo sheekana loo sheego alxamdulillah hadda dadka moogtay dad qaar waxay dadka maal kala celiyo dhibaato dhacaysa Soomaaliya waxa ku maamaan nin dab haya dab day lama dhaho nin hadda waxa kale hadda koor nin oo biraatuma yaambu sameeyay yaambada marka dabka la geliyay way kululaatay ilaa ay ka midoobato uu ka soo bixiyay meel u dhigay wuxuu rabaa marka inuu hadana tumo oo garaacsi ay yaambadii loo sameeyo mid reebaadi oo yaambada raba ayaa soo ag fariistay wuxuu rabaa inuu gorgoroyo yaambada meeqa la gadaa yaambaduna oo dabka laga soo bixiyay way kulushahay madow way noqotay si loo dabka loo waayo gacantu ku soo wada mooga asay inay kulushahay wuxuu marayaa baal qabow waana hatta dabka laga soo bixiyay wuu taabtay marka safaraha intii hore afiiqantay kor inuu u booday baash iska tuuray nin meesha taagana wuxuu ku warniyo ninkaan intuu gacanta ku sii waday yaambada kulul waad u jeeday war yaambada way kulushahay maxay u dhiweys wuxuu maxaan u dhahaa asaga iska dhigaaye hadduu taabto asagoo dhiga aan la dhihin asaga iska dhigaaye saasa Soomaaliya waxa ku maamaan nin dab haaya day lama dhaho asaga daynay marka beledkan marka waxaan ka baray waxa ku dhahay Muqdisho mise Soomaaliya dhahay Muqdisho igu soo orod ma ah marka beledkan igu soo orod ma taalo nabad waxay ku dhaantay marka in walaalo la ahaado sida loo shaqeysanayo dadku isaga shaqeystaan siyaasaddan way iska degi doontaa maalmo ka bacda iyada iska qandhaa la yiraahdo adduunka dhan way ka dhacdaa doorasho markay socoto qandhada doorashada la dhahayo barasmool ay u baahan tahay marka barasmool isticmaala isdajiya biyaha badsada cabitaanka maalmo yar iska sabra iska dulqaata iska dhamaanaysa wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin intaas ku dhageeday wasbir wama sabruka illa billahi wala tahzan alayhim wala taku fi dayq mimma yamkurun inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun waxna weeyeen adiga sabir kana ku anfaaya waxa la maleegayo ama la hagardaamaynayna wala takun fi dayq mimma yamkurun maxay qofkii shirqool ka shaqeeya ilaahay wuxuu noo tilmaamay wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli qofkii shirqool sameeya asagu taala Soomaaliya waxa ku maamaan waxa ay ritifidna qofkii rara
riti fidna ninkii rara haanta ugu weyn isagaa la dega dhoon horaada la yidhahdaa ritiga markii la raro haamaha mid hore laba hore iyo laba dambe kuwa hore ee waaweyn riti oo maalan biyo haddaad rarto haanta biyaha ku jira adaad degsanaysa riti fidna haddaad rarto marka waxay dhahaan ninkii riti fidna ninkii rara haanta ugu weyn asagaa la degsanayo waana la arkay marka fidna lagama shaqeeyo nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fidna markay dhacdo alqaacidu fiiha qofka ka fariista ayaa khayru min alqaa'imi kan taagan kan fadhiya ka fiican walqaa'imu fiiha kan dhex taaganna wuxuu ka khayr badan yahay asaaci kan dhex hordaaya man tasharafa laha fidnada qofkii soo fiiriya tastashrifuhu ayaduna way soo fiirisaa haddaad ka tagto oo ka cararto waa ka badbaadaysaa laakiin haddaad tiraado fidnada waan ka wardoonaa meeshan maxaa lagu hayaa koow aday ku qabsanee marka calaa utruki shar dhibaatada iska daa yatrukuka adnaha ku daaye qof walba wuxuu kasbado ayuu leeyahay walaa yaxiiqu lmakru shay ilaa biahli marka ilahi subxana wa tacala tawfiiqahayna waafajiye ummaddeenna bisayl fiicanay joogtaa waxa la isku haya dhanay fahamsan tahay xilligii yani qofka macluumaad uusan haynin intii looga soo warramo saasaa lagu dhahay iyo reerkiinaa la necab yahay iyo reerkiinaa lala dagaalsanay la isdhihi jiray waa la dhaafay inaan reerna la dagaalsanayn reer la necbayn meesha way ka muuqataa ee kuraas midna uu rabo midna uu ceshanaya ayaa meeshaan la isku hayaa marka tartiib isqaboojiyo wax weyn ha ka soo qaadina wixii aad maslaxayn kartaana maslaxeeya laakiin shidaal ha ku sii shubina dhibaato socota shidaal ha ku shubina intaad celin karta war jooga war kala jooga war dadkan waxay u baahan yihiin deganaansho qofkii khayr uga shaqeeyay jecelyihin xagga ha la wada aado laakiin haddii si kale loo dhigo adoon qofna aan ugu naxariisanaynin naftaada ugu naxariiso fidnaha isku abuurin haddaad fidna abuurto aday ku soo gaaraysaa carruurtaaday soo gaaraysaa dhib aad adiga abuurtay qof walbow toosnow saasa waxaa la yidhahdaa haddaad adiga ay quluubtaadu fiican tahay oodan sir iyo khiyaano aadan wadanin waxaa la yidhi sir maqabe saabkaa biyo u celiya saab hadda biyo celin maayo laakiin haddaadan sir qabin saabkaa biyo kuu celinaayo marka dadka ahlu khayrka waxaan ka rabnaa in saabkaa biyo u celinaaye ay khayrku inka shaqeeyaan inta dhibaato samaynaysana aan u ducayno ilaahay inuu dhibaatada ka celiyo ummaddaana ummad khayr oo horey u socota inuu ilaahay ka dhigo saasaan ummaddana ugu wada baaqaynaa dhulkuna nabad iyo wanaag ayuu inagu deeqaa colaadii wax ma deeqayso waxaan ma tarayso qofka faa'iidayna ma jiro kulli waa lagu wada baaba'ayaa diinteennuna waxayna faraysaa muslimiinta wixii dhex gala in la heshiiyo fattaqu llaha وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هذا المؤمنين تيم إلهي رسولك سعديها بحيث أهلنا يسوك الدحقلين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إسكيشية ساسوا إلهي إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد